بسم الله السلام عليكم. hello to everyone. asxaabta aad baan idin salaamaya meel kastoo joogtaan waxaan idin leeyahay maalinka ha idin wacnaado waa walaalkiin Arah oo caaway idin wado barnaamij kale oo aan wax u arko in wax fara badan oo naftaada ka bedeli doono waayo nafo fara badan qofka bini'aadanka markuu isku dayo inuu wax ka bedelo bulshada uu nool yahay markaas ayuu noloshiisu ay macna yeelanaysaa. haddaba sida aad ku aragteen ciwaanka kore caawa waxaan ka hadlayaa wax muhiim ah, qodob muhiim ah, qodob la rabay xilligii loo baahnaa waliba aan ka soo daahay, qodob muhiim ah oo annaga dhan la wada haysto oo caalami ah ayaan caawa ka hadlayaa. haddaba caawa waxaan ka hadlayaa wax ay Englishka ku dhahaan anger management oo Soomaaligana lagu dhaho sida loo kontrolo xanaaqa amaba carada sida loo kontrolo ayaan caawa idin la wadaagi doonaa. haddaba intaana barnaamijka horgelin oo aan saddexda aan faahfaahinin waxaan idin kala hadli rabaa inaan idin sheego asxaabtoon idin xasuusiyo haddii markii ugu horeysay aad tahay oo aad nagu soo biirtay fadlan waxaan kaa codsanaynaa si xushmad ay ku bixaan tahay subscribe inaad siiso like na aad siiso to like video markaa siiso waxa badanayo in YouTube-ka uu dad fara badan tuso. subscribe markaa siisana waxa badanayo sidoo kale numberkeeni iyo viewskeeni taasna waa qayb kamid ah dhiirigelinteeni. haddaba waxaan ka hadlayaa saddex qodob oo kaliya oo aad ku manage gareyn kartid ama aad ku maareyn kartid xilliga aad xanaaqdidood carootid. haddaba waxaan ognahay xanaaqa waa waxa kaliya ah qofka bini'aadanka ka adag. Nabi Maxamed alayhi salaatu wasalaam wuxuu noo sheegay xadiiskii ahaa qofka ugu geesisan waa qofka xanaaqiisa ka adkaado xilligu xanaaqo isqabto waa qofka geesiga rasmiga ah waa sida uu noo sheegay Nabi Maxamed alayhi salaatu wasalaam soo banaheeni. haddaba marka waxaan idin hayaa saddex qodob kaliya ah oo aad ku manage gareyn kartid xanaaqaada xilliga aad carootid. kow waa delay the response oo macnaheedu tahay daahi jawaabta xilliga ay wax dhacaan. waxaan rabaa in idin la wadaago qofka bini'aadanka ah markuu xanaaqo waxaa jiro laba response ama laba jawaab. waxa kala bixisa bidix iyo midig. jawaabta ay bixiso midigta waa jawaab aan caqliyeysnayn, waa jawaab la shaqeyso shanqartii markaas dhacday markaas qofkii xanaaqiisii wixii markaas dhacay accidentiga dhacay qof baa ku aflagaadeeyay qof baa wax kugu dhuftay responsigaas ka imaanaya dhinaca midigta ah waa response aan rational ahayn ama aan ahayn mid caqli ahayn oo macquulsanayn. waa response-ka islam ama waa jawaab celinta degdegto. jawaab celinta degdegtana ma lahan waxa ay dhahaan يعني ما ahan jawaab caqliyeysan. wax caqliyeysan qofka kuma hadlayo markuu wax ay ku dhacaan isla markiiba uu ka bixiyo jawaab bixiyo waa shanqar amal qofkii marka anyway adiga waxa waayo marka xanaaqdid tusaale oo kale qofka ku aflagaadeeyay qofka wax kugu dhuftay isla markiiba way xanaaqaysaa. waxaad sameynaysid hadhow waad ka shalaynaa wixii marka aad sameynayso maskaxda dhanka midigta ka soo baxayso wax caqli yar ma lahan. maskaxdaada caqligeeda ma isticmaalaysid xataa 1% caqliga maskaxdaada ma isticmaalaysid. wixii maskaxdaana loo isticmaalina waa dareemi karaysaa inaysan macno badan aysan lahayn. marka delay the response markii lagu leeyahay oo kale daahi jawaabta waa sidaas. midda kale oo bidix ka soo baxayso oo jawaabta bidixda ee maskaxda ka soo baxaysa waxay tahay midda qaadata waqtiga oo daahdo markuu qofka wax ay ku dhacaan uu xanaaqo haddii uu aamuso xogaa maskaxda la tashto waxa u soo baxaysa jawaab rational ay Englishka ku dhahaan oo macnaheedu ay tahay jawaab xisaabsan oo calculate garaysan oo Ilaahay kuma darnaadee caqliyeysan oo 99% maskaxdii la isticmaalay oo adiga aad u qurux fara badan ayaa ku soo baxayso markii ay wax sidaan u sameeysid ay wax saan kugu dhacaan haddii aad ka jawaabtid
waa ilaahay kuma darnaaday waxa soo baxay waxa dhow aad ka shalayn doontid. That is why loo dhaho laba wax weligaa ha samaynin. Adigoo xanaaqsan go'aan ha qaadanin intaad nooshahay, adigoo faraxsanna ballan ha qaadin. waa labada wax ee hadhow laga shalaayo. Marka delayed response-ga qofka bini'aadanka ah markii uu jawaabti daahiyo waxa maskaxdiisa ka soo guuxayo wax aqliyaysan dadka agtooda joogana markaas ay ku qancaan qofkina loogu riyaaqo. qodobka labaad maxay tahay anticipate the situation or the conflict oo macnaheedu ay tahay xaaladii markaas taagneyd waxaad isku daydaa in aad gacanta ku qabatid adigoo qiimeynayo wixii dhici doono ama xaaladan hadii xaalad farax ka sii baxdo meesha ay gaarayso. Englishka waxay ku dhahaan forecast or predict waa inaad qiyaasi karaysid xaaladda soo socoto kadibna adigoo isticmaalaya aqliga delayga aad sameysay ama aad ku dahaysay xaaladii aad gacanta ku qabatid. xaaladii oo dhan aad gacanta ku qabatid xaaladii ay noqoto mid aad control kartid. laakiin hadii xanaaq dhaqso aad ka falcelisay falcelintaada hadii ay mid degdegtay xaaladii ayada ayaa ku controlayso oo gacanta kugu dhigayso. laakiin hadda waxaan rabnaa in xaaladii marxaladii anaga aan gacanta ku qabanno. marka anticipate the conflict isku day xaaladda soo socoto iyo sida markaas ay tahay inaad isla markiiba participate garaysid gacantana ku dhigtid markiiba aad isku dayday xaaladii inaad wax ka qabatid. qodobka saddexaad waa resolve the conflict when calm. xaaladii markaad delay garayso daahisay haddana aad gacanta ku dhigtay hadda waa xilligii aad xalin lahayd adiga oo degan. waxay ku leeyihiin meeshan xalli xaaladda ama problemka meesha ka jiro adiga oo maskaxdaadu tahay mid fadhido. marka maadaama maskaxdaada ay fadhido waxaa ku hergelayso inaad xaaladda si degan u xallisid. ilaa hadda waxaan ka hadlaynaa principle-ka saddexda principle-ka ah ee qofka bini'aadanka ah uu ku control karo xanaaqiisa. haddii qofka bini'aadanka uu ka adkaado emotionalka ama xanaaqiisa hadduu ka adkaadana ani waxaan aaminsanahay wax kale oo dunida dhibayso ma jirto. waxa ugu weyn ee qofka bini'aadanka ah meel saari karo waa nafta lagu sheegayana waa xanaaqa. haddii aad xanaaqa ka adkaatid oo xilliga aad bis ab noqotid oo nolosha aan ku noolnahay waa ogtahay bini'aadanka adduunka aan ku noolnahay dadku isku dabeecad ma ahan, isku caqli ma ahan, isku aragti ma ahan, isku day qof walba wuxuu rabaa fikirkiisa inuu ka dhaadhiciyo. qof walba wuxuu rabaa fikirka asaga uu aaminsan inaad aamintid. marka dunia waxaan ku noolnahay qof walba uu leeyahay aniga ma ishii cid kale ma sahan. marka arinta dunida noocaasa waxa kaliya oo aad ku noolaan kartaa waliba qalbi degan oo farxad aad dadka bulshada kula noolaan kartaa in aad tahay mid mar walba xanaaqiisa emotionalkiisa gacanta ku hayo. sababtoo ah emotionalkaada haddii adiga uu gacanta kugu dhigo adduunka dhan waxaad u noqonaysaa victim ama qof yani dhibana aad adduunka u noqonaysaa. laakiin haddii aad gacanta ku dhigtid xanaaqaada emotionalka naftaada haddaad gacanta ku dhigtid waxaad noqonaysaa mid gacanta adduunka oo idil ku hayo. dabcan markaan adduunka ku lahayo waxaan ka wadaa qofka hadduu xanaaqiisa controli karo wuxuu controli karaa wax walba oo markaasi u dhow. marka hadafkeena qorsheena maanta wuxuu ahaa in xanaaqeena aan ka adkaano mar walba aan isku dayno oo aan xanaaqno. fadlan aan isku dayno inaan dejinno amaba jawaabta aan daahino caqliga la kaashano kadib xaaladda dhexgalno saddexna aan isku dayno inaan xalino. intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa. mar labaad waxaa iga xasuusid haddii aad doonayso in aad fikirkaada quruxda badan nala wadaagtid fadlan commentiga nagula ku soo qor. haddii aad doonaysid inaad video noocan oo kala daawato fadlan walaal subscribe leh. haddii aad ka heshay videogan oo aad u aragtid inuu yahay mid wax ku soo kordhinaya noloshaada iyo horumarkaada fadlan like. haddii aad rabto asxaabta kale saaxiibada ah iyaguna inayna ogaadaan kana qayb qaataan channelkan kana faa'iideystaan barnaamijyada aan soo dirno fadlan noo share garee. waxaan idin leeyahay amaana allah meel kastoo joogtaan caafimaad iyo cimri dheerka.
Allah idin siyaadiyo.